golaha military gacanta ku hayo xukunka dalka Niger ayaa kulan la qaatay laba ergey oo ka socday Nigeria kulankaas oo looga rajo qabay in xasilooni lagu abuuro ka hor shir madaxeedka hogaamiyaasha gobolkaas oo la filayo inay ka soo bixi karto in tallaabo military laga qaado sidii xukunka dib loogu celin lahaa rayidka wada hadaladan ayaana dhacay iyadoo Niger ku eedeysay Faransiisku inuu hawoodeeda ku xadgudbay saacadihii la soo dhaafay uuna weeraray xeer military halkaas oo Niger ay sheegtay inuu ka sii daayay waxa ay ku tilmaamtay argagixiso si u dhaawacay yiraahdeen sharafta dalka Niger Paris ayay iska fogeysay hasa ahaatee eedahaasi sarkaal u hadlay ciidamada afkambiga sameeyay Amadou Abdurrahman waxa uu ku sheegay eedeyntan muuqaal u baahiyay waxaanay tani baasiin ku sii shubaysaa ka hor kulanka Khamiista maanta ay yeelanayaan hogaamiyaasha galbeedka Afrika kuwaas oo ka wada hadli doona suurtagalnimada tallaabo military oo laga qaado Niger waxaanu aragnaa waa sharci darro la doonayo in lagu mijaxaabiyo dalkeen ayuu yiri Amadou Abdurrahman oo muuqaal baahiyay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa ku gacan saartay eedeymahaasi waxaana ay sheegtay in diyaaradaheedu ay ku shaqaynayaan heshiis hore oo ay la galeen ciidamada Niger waxayna intaas ku dartay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiisku in dalkaas ay ku joogto codsi uga yimi xukuumadda sharciga ee dalkaasi waa sida ay sheegtay hadaba intii uu socday ismarwaagani golaha military ee Niger ayaa gaashaanka u daruuray dhagahana ka furaysta baqyo diblomaasiyadeed oo uga yimi midowga Afrika Mareykanka iyo qaramada midoobay hogaamiyaasha militariga ayaa arbacadii qaaday tallaabo ka duwan kuwii hore kadib markii ay la kulmeen laba ergey oo ka socday madaxweynaha dalka Nigeria oo sidoo kalena ah gudoomiyaha urur goboleedka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS kuwaas oo u yimi magaalada caasimadda ee Niamey sida laga soo xigtay ilo ka tirsan Nigeria labadan ergey oo ah hogaamiye dhaqameedyo caanka wadankaasi laguna kala magacaabo Lamadou Mohamed Sanusi iyo Abdul Salam Abubakar ayaa loo ogolaaday inay Niger soo galaan inkastay xidhantay xuduudda u dhaxaysa Niger iyo Nigeria Lamadou Mohamed oo kaliya ayaana loo ogolaaday inuu la kulmo hogaamiyaha ciidamada militariga General Abdurrahman Tiani halka Abdul Salam Abubakar uu garoonka diyaaradaha kula kulmay wakiilo kale oo ka socday dawladda Sanusi markuu ku soo laabtay magaalada Abuja waxa uu sheegay wariyaasha inay adeegsanayaan habka diblomaasiyadda si labada dhinac la isugu soo dhaweeyo xisbiga madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Niger Mohamed Bazoum ayaa ku eedeeyay golaha military xukunka la wareegay 26 July inay isaga iyo qoyskiisaba u la dhaqmeen si ka baxsan buu yiri bini'aadanimada quwadaha reer galbeedka ayaana ka baqaya in ciidamadooda laga saaro dalka Niger tusaale la mid ah kii Mali oo kale taasina ay keeni karto in kooxda uu taageero Ruushka ee Wagner ee caloosha shaqaystayaasha ahi ay saameyn iyo galangal ku yeeshaan gudaha wadanka Niger warkana waxa goordhaweyd daabacday wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP waxaanad kala socdaan Burco Media Group waxaana idin la socodsiinayay anigoo Cabdiqani Muuse tabinteen inta xigta nabadgelyo